kala al-shabaab iyo daacish insha Allah waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in ay ku kalsoonaadaan ciidamada ammaanka insha Allah waxaan ku rajaynahay waqti kooban in ay xasiloonaan doonto guud ahaan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya hawlgallada ciidamada ammaanku ay sameeyaan habeen iyo maalinba waana hawlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso oo la beegsanayo cid kasta oo wada talaabooyin ammaanka lid ku ah intii hadda ciidamadu ay shaqeynayaan asbuucan waa run dad badan baa la qabtay dadkii la qabtay waa qayb baa la sii daayay qaybo badan oo wali baa soo harsantaana way jiraan oo xabsiyada ku xiran insha Allah ma doonay inaan ka hor dhaco ilaa xaqiiqda dhabtaan gaaro dilaan qoriyihii horta sida la socotoba hadda gumciidan meeshiyaal waxa la yiraahdaa motor 60 kooxaha dalka khalkhalka ku wada oo al-shabaab iyo daacish waxay u isticmaalaan in ay ku waxyeelayaan guud ahaanba dadka inta badan waa kuwa Muqdisho magaalooyinka lagu garaaco wax badan been maqlay baan u maleeyaa magaalada Muqdisho hoobiye la dhacay waa xabadaha kan aad u jeedaan qoryihiina insha Allah gacanta lagu soo dhoogi doona iyo wax kasta oo dhibaateyn kara ummadda Soomaaliyeed maaha markii ugu horeysay laamaha amnigu ay gacanta ku soo dhigaan hub caynkan oo kala ma jiraan cid lala xiriirinayo hubkan oo la soo qabtay balse la xusay inuu baaritaan socdo Ahmed Sham Hon Cable TV Boosaaso.